wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya ay ugu tala gashay xus in loogu sameeyo nabadoon cilmi xagar guure iyo hibaad cali dasar oo ku shahiiday dagaalka iyo kacdoonka ay kula jiraan shacabka Soomaaliyeed ururka argagixisada ah ee xagjirka ah ee caadeystay inay gumaadaan shacabka Soomaaliyeed. wasaaradda ayadoo ka faa'iideysanaysa howlaha ay u hayso bulshada oo la dhaqameedyadana ay qayb ka yihiin, wasaaradda waxay soo qabanqaabisay kulankan qiimaha badan si bulshada loogu dhiirigeliyo ka hortagga iyo la dagaalanka ururkan xagjirka ah ee caadeystay inuu gumaado shacabka Soomaaliyeed. oo la dhaqameedyada uu ka mid ahaa nabadoon cilmi xagar guure wuxuu ka mid ahaa wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka. wasaaraddu waxay go'aansatay in ay u sameyso xus gooni ah, duco gooni ah iyo dhiirigelin in odayaasha inta kale ay ku hogaamiyaan bulshada in la iska qaado heeryada cadowga. sidaa daraaddeed maanta waxaan soo qabanqaabinay kulankan qiimaha badan, madaxdana way ku mahadsan yihiin kasoo qaybgalka ay nagala soo qayb galeen. waxaan u mahad celinaa dhammaan dadkii kasoo qayb galay ee ajiibay dacwada loo fidiyey, tiimkii soo qabanqaabiyey, warbaahinta iyo tiimkii kasoo shaqeeyey kulankan quruxda badan. xafladeena maanta saanay noogu furan tahay iyo kulankeena xuska ahaa. soo dhawaada, aad iyo aad aan u mahadsantihiin. assalaamu calaykum.